waxyaalaha tusaalaha ee keenay xafiiskan in la furo waxaa ka mid ah gabadha waxaa muddo dacwadeeda socotay xafiiska gobolka Ooleyd dabadeedna muxuu ahayd waanu soo qabanay iyadii gabadhaas waa Yemeniyad xaqna uma leh inay baasaboor naga qaadato waa Etoobiyaaniyad waxa weeye xaqna uma leh inay aanu baasaboor Soomaaliya ay qaadato waa ku celinayaan gabadha waxa weeye sawirka leh waa Etoobiyaanad dokumentiga halkan ay soo martay waxa ugu qoran inay tahay Soomaali xafiisku soo celiyay gabadhi baan u yeeray dadkii waday waxa cadaatay inay tahay Etoobiyaanad nagu markaa baasaboor xaq waxay ku leedahay dalka u dhalatay inay ka qaadato baasaboor taas waxay keentay in muddo xafiiska la isku haysto dad baa wada waxay oranayaan muxuu ahayd waa Soomaali gabadhaas markaa waa Etoobiyaanad waxa weeye sharcigu ma ogola waana waxyaalaha hadda u abuuray xafiiska waxa kaloo jira gabadhaas waad aragtaan waxa weeye gabadhaasi waa gabar British gabar Ingiriis weeye waxa la rabaa baasaboor Soomaali in la siiyo ma suurtageli karto waxa weeye iyadii waxay ku leedahay markii la kulmay anigu aabahayna waxa weeye waa Ingiriis hooyadayna waa bahal waa Soomaali Yemeniyad dad baa wado waxa la leeyahay baalkii waa waxyaalaha waqti badan anaga xafiiska naga lumiyay oo maamulka gobolka iyo degmada iyo xafiiskii maxaa immigration-ka oo maxaa ahayd sodaalka oo bixinay iyaduna waxa weeye waa gabadha maxaa cadaanka iyada gabadha ayan baan ku wareejinay markii aan xal waa inaan u helaa qofka soo beesha ku nool ninka waxa weeye baasaboor buu doonay waa Tansaaniyaan waxyaalaha keenay in xafiiska la furo bay ka mid tahay waa muuqaalkiisa mubaarak buu la baxay mubaarak Jaafar mubaarak يعني magaciisa ilaawi karin buu la baxay waa Tansaaniyaan taas way waa waxa keenay markii aan maxaa dhibtood waa in cid sahlata oo isirka raacda oo cadaysa oo warqadiisa matiin hadii la yiraahdo soo ka baxaya haduu Soomaaliya warqad baa la siiyay baasaboorkiisu qaadanayo xafiis qofna dib u geysanayo maaha qofna muwaadinimadiisa ma qaadayo Soomaalinimadiisa ma qaadayo laakiin Soomaali ma tahay معايدي والله ورئيسنا يا دبنا ورقدنا سالسنا مبارك وتنسانيان وذلك تام فوم كوبوحي سقي بالله فبانو صوه الله دد با ودعونا وحلايين وصومالي وانو دوني ولا سو قبته ولا خيري تنسان انا باسبور نين تنسانيان وذلك تام مقالكيسا وانا سببها كان ما ها انتان كليا الحفيزك gobolka dhowr iyo 10 qof oo sidaas oo kala yaala marka wax kasta oo dacwad ama dhibtoodu badato waxaanu ku qasbanahay inaan xal u doono halkii aan u dooni lahayn wuxuu noqday in xafiiskan aan furo waxaanu jecel lahay uqaasha in dadka muwaadiniinta maxaa ahayd Soomaaliyeed halkan inuu ku imaanayo inaad u sahashaan inay qaataan baasaboorkooda